السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لهي قالية ملك السودان كانت كجوكتان عافماد إبراقة كون والله أنت حنوصن إلهي سبحانه وتعالى عافية أنت عافماد قفتن إلهي سبحانه وتعالى هو زيادة موضوع عمانتك الله يانا محيطاي كوقنا عسنا وحي الله سبحانه وتعالى كسيدي ونلول إن شاء الله بإذن qof walba noloshu ku nool yahay inuu ku qanci waayo waa wax hada anaga na haysta inteena badan nagu dhagan qof ayaa wuxuu haystaa guri villa ah hanti ku filan waxa laga bixiyaa waxbarashadii wuxuu haystaa nolol caadi ah oo mutawasit ah oo ku nool yahay qof ayaa wuxuu ku nool yahay nolol heerkii loogu baahnaa oo wax walba uu qofka soo baahan yahay oo helaa waalidiintiisana ay wax walba ka caawiyaan qof ayaa wuxuu ku nool yahay nolol mutawassitna ka hooseysa yacni everykiina dhaanta yacni iska nolol ah adiga qof ayaa wuxuu ku nool yahay nololtii ugu dambeysay oo lagu noolaado inuu degan yahay boosho kaleeta in maxaa la kutriyoonkiisa maanta dhar uu soo dhaqay oo ku maareeyo ilmihiisa nafsadiisa uu ku maareeyo marka nololaha aan soo sheegno dhan ibni aadanka intiisii way ku wada nool yihiin ama qofku wuxuu ku nool yahay nolol haya ama nolol haya mid ku xigta ama nolol tan dhexdhexaadka kan ku xigta ah ama nololtii ugu dambeysay oo yacni lagu noolaado oo faqiirnimo ah marka waxaana laga doonayaa inaan ku noolaano sidii ilaahay subxaanahu wa ta'ala noogu tirigalay inaan ku qanacsanaano nolosha habkii aan yacni ilaahay uu noogu tirigalay inaan ku qanacsanaano haddii ay tahay booshkii haddii ay tahay gurigii dhexdhexaadka ahaa haddii ay tahay hantidii ballaarneed waxaas dhan inaan ku noolaano haddana mashaakilkan sii haystaa oo waxay tahay qofka dhalinyarada ah siiba dhalinyarada ayaan ka hadlayaa qofka dhalinyarada asoon la weydiinaynin mishaarkii guriga yacni kirada guriga maalkii biyihii korontadii asagoo la weydiinaynin ayaa wuxuu iska soo jarayaa ani guriga noloshiisa waa nacay waa necbahay noloshaan saan waay ciriiri waay inta waay ayuu iska soo jaraya waxbarashada laga bixiyaa dharkaaga waa lagu gadaa shoppingkaaga waa lagu gadaa maanta kaarda u baahanta waa lagu siiyaa intaas qof ay haysanin oo ku nool noloshiisan ku qanacsan yacni wax soo biili aysan jirin waxbarasho qofka bixiyay aysan jirin haddii wax uu baahdo uu qofka weydiista laheenin haddana noloshiisa wuu ku qanacsan yahay marka hadda ka hor waxaa dhacday gabar saaxiibnaha ay imaatay gurigiyaa wuxuu ugu noqday mid ciriiri ah dhibaato ka dareemaa oo aniga le kaliya haysato markaasaa gabadhii way ii sheekaysay dhibaatada haysato familkeeda oo meesha ku nooleen Soomaaliya oo wadan kala degan ayadana Soomaali ayadoo laba cunugood ee imaatay reero masaakiin oo dhagax ka xamaashaan dul saaran tahay wallahi maanta haddii $1 la i weydiiyo dhahdo waa la idil karaa maana ma haysto reerahaas cambuulada la cuntaa waxay haysta malahan anigii nolosha ciriiri ahayd ku jiro wallahi gabadhi markay ii sheekaysay waan iswaaniyay waxaas dhaamarkii nolosha ku nooshaha fiire yacni bini aadankan oo dhan qof walba imtixaan ayaa haysto aniga maanta koronto ma la i weydiinaya oo biyo ma la i weydiinaya oo cunto ma la i weydiinaya oo wax la i weydiinaya aan jirin waxaan taagnaa noloshaan ciriiri ayay igu tahay marka waxyaabo waxaa jira markii aad aragto nolosha aad ku nooshahay aad ku qanci doonto yacni qofka ka hooseeya markaa fiirisid sida isbitaalada kale markaa soo booqato caafimaadkaaga wuxuu noqonayaa mid tamaam ah markaa aragtid dadka dhibaataysan inaad aragtid meelaha xirooyinka markaa tagtid ee dadku buushashka ku leeyihiin waxaad dareemaysaa noloshaada in nolol hay ay tahay nolol macaan aad ku nooshaa dareemaysaa marka walaalahay qaaliga ah waxaan jeclaystay klibkan yar inaan soo gudbiyo oo walaashiin marka xasan maxamed oo idan leh caafimaad iyo barwaaqo ku noolaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.